mas-uuliyiinta guddida kaambeenka xisbiga kulmiye gobolka togdheer oo maanta shir jarayd ku qabtay hotel city plus ee magaalada burco ayaa waxay eedamo u soo jeediyeen xisbiga mucaaradka ee wadani iyagoo ku eedeeyey rabshado maalintii shalay ka dhacay gudaha magaalada burco sidoo kalena ku tilmaamay in xisbiga wadani gudaha magaalada burco uu ka wado iibsashada kaadharka codbixinta waxaana hadaladoodii ka mid ahaa waxaanu leenahay xisbiga wadani waxyeelada iyo khalkhalkaad ka wadaan gobolka ka daaya waynu tartamaynaa shalayto markay soo baxeen baabuur bay ku wareegayeen go-aankii laysku ogaa komishinka gobolka iyo barasaabka iyo ciidamada amniga intaba wuxuu ahaa inaan baabuurta la wareegin oo laga daayo baabuurta wareegaysa ee suuqyada wareegaysa taa horta way jebiyeen sharcigaas oo waa mid la og yahay la og yahay arrin cad ay tahay inay dadkii kaadhka ka iibsanayaan telefoonada lasoo garaacayo laleeyahay ma noo codaynaysaa hadduu qofku idhahdo idinma taageersan anigu waxaa laleeyahay kaadhka naga iibi waxaan iska leenahay mahay waanu caddaynaynaa markhaatiyadeedii baanu haynaa kuwii kaadharka laga iibsaday baanu haynaa iyo ciddii ka iibsadayba haddii loo baahdo waanu soo caddayn karnaa halkan baanu soo joojin karnaa haddaad maanta ku bilowda inaad kaadh iibsato barrina sidee dalka lagugu aaminaya waxaanu leenahay war waa la tartamayaa in laysma dilayni dee si saxa oo sharciga waafaqsan uu olole kaadhka aad iibsanaysa jooji komishankana waxaanu leenahay waxaan waa in la joojiya haddii la joojin waayo waxaan anigu ku talinaya dee in markaa kaadharkii la kansalgareeyo oo sideennii hore aynu ku wadanno reer wadani dee shiidka ayna ka daayaan gobolka waynu dhalanay gobolka dhul dheer ugamaynaan iman waynu leenahay ubadkii wax shiidaya ka dakhrimaya waa ubadkeennii mid meel fog ka yimi maaha caruuraheenna yaynan gawaadhidana ka tuurin dhagaxana yaynan ku dhufan aynu badbaadino haddii ubadkaaga aad laysid oo caruuraha dooxdid dee waxba inoo qabsoomi maayaan tartan bayna kaga dhexeeya tartanka barcad aynu isugu nimaadno shalayto waxaa lahaa wadani waxay sameeyeen gawaadhidii ay ku soo gureen ciyaalka waxaa saarnaa dhagax gaarigisa dhagax baa ka baxay oo lagu soo raray markii ay magaalada soo mareen ay laamiyada soo mareen ayay meel alla meeshii ay calan kulmiyaa ku arkaan meheradii ay ku arkay gaarigaa ku arkaan ayay ku tuurayeen xafiisyadii kulmiya shiidayeen waxaan leeyahay reer wadani waa la tartamayaa dariiqaa uu inoo jeexay komishinku aynu marno oo hala tartamo laakiin ha laga daayo wixii aan bannaanayn waxaanu idiin soo jeedin lahayn waar waynu tartamaynaaye kalsooni yeesha oo haddaa wadani tihiin dadku qofkay jecel yihiin bay u codaynayaane waxba kaadharkaa ka gurina shacabweynaha xisbiga kulmiye sidii ay awalba amniga gacanta ugu qabteen ee ay xisbi mas-uul oo xisbi qaran isaga dhigeen inay ku sii hayaan oo aanay gelin saan ku gud saxan ku gud salaan ku gud aanay geline ay maxaan ku raahdaa ay adkaystaan xisbinimada iyo xisbi xaakimnimada ee adkaystaan waxaan taagnaa halka daahir oo isdhigayso markii maxay tahay gawaadhida lagu jajabiyay gawaadhi iska taalo geerish horti taala oo calaamadii ku taalo maxay tahay kulmiyoon ku taalo ayaa dhagax lala eegnay gawaadhidoodana waxa ku masaxnaa oo saa ugu masaxnaa dhagaxa burbuuran ay dixda kaga soo qaateen marka waxaan u aragnaa anagu wadani ina ay qalalaase markay codi waayeen inay ku bedelaan maxay tahay qalalaase iyo ay nimankaas fooday wadaan foodo dagaal bay wadaan dad iska horkeen bay wadaan waa kuwii soo fogayay xabaalihii soo fogayay hortaagna waayaala xasan salebaan ayaa la BMTV-ga caalamiga Somali News magaalada Burco.